السلام عليكم ورحمة الله أصحابتayda seetihiin maanta waxaan hayaa laba information oo taariikhiya oo aad muhiima about Soomaaliya. Waxaa jirta sheeko taariikhiya oo qadiima oo waxay leeyihiin Nabi Ciise markuu dhashay 3 nin oo geel wata oo niman la garanaya ah baa ka soo baxay wadankooda. Saawadu waxay tageen Ciise meeshuu ku dhashtay oo 3 hadiyado qaali ay wadeen. midna wuxuu waday dahab, midna wuxuu waday malmal, midna wuxuu waday lubaanta ama bakhuurka. طبعا information kasmar walba waxaa sheegan jiray Iiraanida ama dadka Faarisiga loo yaqaano, laakiin safxadda BBC-da Ingiriiska iyo Carabigaba baa bila ka hor oo sanadkaana 2023 faafisay akhbaar ah inuu Jesus ama Ciise calayhi salaam hadiyadaha waxay uga timid Soomaaliya, dhulka Soomaaliya. hadiyadahaas marka ay waagaas u geeyeen oo inii sheega 3 ah, hadiyado waaweyn bay ahaayeen oo qaaliya oo waagaas ma la heli jirin, dadkoo dhan ma heli jirin. طبعا ilaa hadda xataa uunsiga ama fooxa, lubaanta iyo malmasha iyo dahabka طبعا qof walba ma heli karo. 3 طبعا waxay wateen geel. okay, طبعا waad garanaysaa geelka ina Soomaaliya lagu yaqaano dadka ugu geel badan, dadka ugu horeeya adduunka geel raaca. information kaas طبعا hadda waxaa soo baxay oo sheeganaya xabashida amxaartii baa soo baxday, fiideo bay samaysay, wuxuu ku leedahay xabashi bay ahaayeen. waana la yaqaanaa dhulka lubaantana waayo yaa la oran jiray, dhulka malmalka yaa la oran jiray, dhulka dahabka yaa weeye. طبعا حتى faraacinada dadkan bay kasoo qaadan jireen, barbars loo yaqaanay ama Pontids ama Macrobian. طبعا maanta markaan aragno dhaqamada xataa ay leeyihiin Kristiyaanka, especially marka ay u dabaaldegayaan ciidil miilaad waxa loo yaqaano ama Christmaska, dhaqamadaas ilaa hadda way haystaan oo ah 3 hadiyad oo nimankii geelka watay ee u keeneen habeenka Christmaska hadiyaday isku keenaan. even xataa foox, hadda odaygan u jeedaan foox iyo lubaantii buu shiday uu carfinayaa kaniisadda. dhaqankii ilaa hadda way haystaan. طبعا ilaa yawmin alxaali kaniisadaha Yurub 80% fooxa iyo lubaanta waxay ka soo qaataan Soomaaliya. min waagii Kristanka diinta uu soo baxay ilaa yawmin alxaali bisnisyada adduunka ugu weyn buu ku jiraa ay Soomaaliya dirto. marka la soco fooxa la shidayo iyo hadiyadaha la isa siinayo habeenka Christmaska asal ahaan inay Soomaalidu bartay dadka oo maanta diinta haysta Kristiyaana طبعا loo yaqaano. طبعا waxyaalaha la yaabkan isweydiiyay waxa weeye Soomaalida waagaas oo 3 oday baxay oo aaday oo soo salaamayay ama mubaarak ku lahaa inuu Ciise calayhi salaam dhashtay, si cilmigaas ku gaareen inay ogaadaan nabi baa yimid. maybe buugaag qadiimay haysteen, waxaa laga yaabaa طبعا diimaha badankood diinta kale way u sii sheegtaa diinta qofka soo bixi doona ama diin baa ka dambeyn doonta. so laga yaabaa diimo kale haysteen, laga yaabaa buugaagtay haysteen bay ka ogaadeen. alcilmu cinda Allah, laakiin way ogaadeen. okay, information labaad waxa weeye taalahan waxa weeye imperator Romania oo la oran jiray Neron. طبعا waa yani Rome ay xukumi jireen, Talyaani baa la iska oran karaa. marka waxaa dhimatay islaantiisa ama islaama naagtuu qabay ama gabadhuu qabay whatever, waxaa la oran jiray magaceeda Popia Sapina. طبعا asaga because wuu jeclaa, markay dhimatay waxa lagu leeyahay uunsi ama lubaan oo badan oo u dhigmata sanadkoo dhan waxay isticmaali jireen imperatoriyadda Romania oo ilaa intaas lagu tilmaami karo 500,000 geed oo malmala ama lubaana okay la isku daray buu wuxuu yiri alashaan dhimashadeeda markii la duugayay hala shido. yani magaaladii oo dhan baa wada uunsi noqotay ama wada lubaan noqotay ama wada foox buu ka dhigay. can you imagine طبعا رومانيينta businessyo waaweyn baa ka dhexeeyay iyaga Soomaaliya. lubaanadan iyo malmalkan oo dhan waxa uu export ama ka soo qaatay ama waxa uu soo diray Soomaalida. طبعا qisadan waxay dhacday from now hadda la tirsho waa 2060 ilaa 2070 sano ka hor from now. qisadana للأسف الشديد waxaa lubaantaas nagu haysta iyo waxaan oo dhan
waxa weeye dadka maanta jooga carabta ah طبعا maababkan waa maababkii romaanigu dhisteen sidii annaga ay dekadaheena u yimaadaan dekadaha markay imaan jireen ay xataa noo bixin jireen dhulkii lubaanta dhulkii xawaajiga dhulkii udubga badankeed dekada la yidhaahdo moselin baa laga qaadan jiray طبعا waa dekada qadiimiga ah oo ah maanta loo yaqaano boosaaso طبعا dhaqamada dadka ugu high classan ama dabaqada aristocraatiga yurubiyaanka waagaasba waxay isticmaali jirtay fooxa ama unsiga markuu qofka dhinto janaasadiisa طبعا hadda fideoga aakhirkiisa waa nin dhigaya nin cadaan ah waxaas ka hadlaya dokumentiyada طبعا anigoon dabagal raadiyay kana kamid ahaa inuu xataa carabta inay anaga noo imaan jirtay yani qarniyo ka hor ama waagii romaanka xataa inay anaga naga soo qaataan lubaanta unsiga adduumahaas oo dhan can you imagine يعني intay carabtu annaka naga qaadato bay dib u dhoofisaa okay so taas waxay ku khasabtay hadhow Roomaanka imbratoriyada Roomaan inay guumaysato xeebaha Cadan علشان siday u dhoofin ay kaliya u qaadataa annaka unsigeena lubaanteena xawaajigeena halkaas horta la maraya okay tanna xataa documentary fidi ku jirtay aan journalka ka akhriyay waxa weeye طبعا waxa weeye sawirro ay sawireen faraacinadii hore the land of the punt bay ka wadaa Soomaalida businesska markay u dhoofin jirtay ee Soomaaliya ka soo nimankan طبعا meesha ku sawir waa puntis waa Soomaali oo businessyada u qaadaya lubaanta malmalka xayawaanka inuu nooca masaarida marka la siinayo waka hawsha la socda iyo inta jabhad nagu furan oo dagaala oo taariikhdeena rabta kaliya inay iska qaadato oo iska sheegato made an appearance at Roman funerals. If you were a really rich upper-class Roman, you could show off how rich you were even after death by burning tons of frankincense. We are told by the Roman historian Suetonius that Nero burned tons of frankincense for his wife's funeral. Myrrh